الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ربي جل علاه: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. الله أكبر الله أكبر. وتعيها أذن واعية. dhagaha wax maqla ayaa khayrka u duleela. dhagaha jecel kalaamka Ilaahay subhanahu wa ta'ala markay sida u maqlaanba qalbiga u dhaadhiciyaan. dhagaha khayrka iyo kalaamullah jecel markay saa u maqlaanba jirkooda ayaa jarircooda. kadibna waxay u hiloobaan Ilaah subhanahu wa ta'ala maghfiradiisa, waxay u hiloobaan Ilaah subhanahu wa ta'ala ridwaankiisa iyo raallihiisa, raxmadiisa iyo nicmadiisa u hiloobaan. walaalkayga sharafta badan, walaalkayga qiimaha badan, ma ogtahay qofka ugu liita qiyaamaha, qofka ugu liita miyaa taqaanaa sida uu warinay imaam muslim saxiixiisa min xadiisi abi saciid al-khudri radiyallahu ta'ala anhu ardah. abi saciid wuxuu leeyahay nabigu wuxuu yiri calayhi salatu wasalaam: inna asharru an-naasi manzilatan 'inda allahi yawm al-qiyamah. qofka ugu shar badan, manzilada ugu sharta badan ee ugu hooseysa ee ugu liidata yawm al-qiyamah miyaa taqaanaan? ma kuu sheega caawa manzilada ugu hooseysa qiyaamaha ee ugu xun ee ugu liita ma taqaanaa? nabiga ayaa kuu sheegay calayhi salaatu wasalaam. nabigu waxa uu yiri: arrajulu yufdi ila imra'atihi. waa ninka markuu xaaskiisa nolosha la qaato, ama xaaska markay nolosha ninkeeda la qadato, thumma yanshuru sirraha. laba lamaana oo guri wada jooga, ninkiiba xaaskiisa la sheekaysanaya, xaaskiisii buu ma artay la istimtaacaya, gurigu la soo galaya, xalaash iyo noloshii macaaneyd iyo qubladii iyo ma taqaanaaye iyo isdhex maraya. kadibna waxa weeyaan banaanka intuu usoo baxo ayuu waxa uu leeyahay: ma taqaanaa gabadha aan qabo? waaw, ma taqaanaa? maasha allah, waa gabar nooca iyo noocaasa, waa gabar saasa dhex yaroo noocan oo xubno noocaasa loo cajiiba oo عجيب. wixii uu marka sheekeynaya sariirta wixii ka dhacay iyo jacaylkii dhex maray iyo hanidii socotay iyo alaabihii la qarinayay iyo sirsirtii iyo macmacaanka iyo laaflaafkii ayuu banaanka soo dhigaya. ninka asaga ah waa ninka ugu liita manzila cinda allahi yawm alqiyama. asharu nnaasi manzilatan cinda yawm alqiyama. wakadalika almar'a, gabadha intay gabdhaha shiriso isku timaado tiraahda ninkaygu ma aragtaye sidaasuu u yaalaa, ninkaygu waxaasuu igu sameeyaa, sidaasuu i yeelaa, sidaasuu ila seexdaa. gabadha iyadu ninkeeda ka sheekaysa, gabadhaasna waa gabadha ugu liidata manzila cinda allahi yawm alqiyama. nadra xun bay qoftaas istaahishaa, qiimo ilaahay agtiisa kama laha. waxaadna ogaataa haddaad ilaahay agtiisa ka qiimo dhacdo, annaga agtanada qiimo kama lihid. لأنه أنا وحن كو قيمين كو جعلنا هو حب الله سبحانه وتعالى وأمر الله سبحانه وتعالى وصدد أمر كله وقادنيسو وصدد النبي ودينس عليه الصلاة والسلام مربى هداود أفعاش يفلمان النوع عاد بلشدة كرد حكعذو وحد أوقاتها إن أد كل عيارت آخر هذه أذو واحد سلده وري مقالمه واحد سلده هنيك كو قبا كشيكه قبلها كالأوغا شيكه وأن النوع عاسا وأن خوردير وهبين كمركو إيمادو نلكو دنسدا ساسان سمينا الكاسان سيحنا سررت قاقعاس marka waxa aad ka sheekaynayso ogow waxaad lumisay positionkii aad qiyaamaha ku lahayd ogow waxaad lumisay mansiladii iyo qurbadii iyo dhawaanshii aad ilaahay ugu dhawaad war lumisay ogow arrintan haddaba aan ka sheekayno waa xalaashi ya allah waxa inuu ka sheekayno waa xalaashi waa lamaanihiis qabi xalaashi ugu ahaa fama balu zunnat haddaba ka warraba kuba ziraysta islada ka sheekeeya yaa ilaaha alcaalamiin kuba intay baadhiyada tagaan xafladaha tagaan soo tuntaan kadibna dadka uga sheekeeya bal kuba ka warran
kuwa marfishada taga, kuwa kilaabyada taga ee markay soo noqdaan dhaha waxaasaan sameeyey, ninkaasaan la seexday, ninkaasaan hadda kahor ila seexday, gabadhaasaan la seexday, xumaanta kuwaa faafiya ka warrama, kuwaasi waxa weeyaan hala aamuso. yaa allah, dadkii xalaasha isku ahaa ayay mansiladoodu halkaas tagtaye kuwan xaaraanta ku dhacay dembigii zinada iyo xumaanta iyo dembigii dadka ay ugu sheegeen. allahu akbar. walaalkaya qiimaha badan, walaashayda sharafta badan, ka fogow inaad kuwa noqoto, ka fogow hadday macsiya kaa dhacdo, hadday macsiya kaa dhacdo inaad macsiyada aad ku faanto, ka fogow. ma ogid in laguu qaban doono, ma ogid inta laguu soo jiro. ilaah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi ina akhdahu aliimun shadiid. wallahi qabashada ilahay way daran tahay, wallahi uma wallahi qabashada ilaahay way daran tahay. adoon ogeyn baa lagugu soo boodayaa. ma ogid cudurka kugu dhex jira, ma ogid markaad dhimanayso, ma ogid markaad adduunyada ka tegayso. walaashayda qiimaha badan, tub ila allah subxaanahu wa tacaala. ilaahay u towbadkeen qabla fawaati alaawaan. maalowta gabar baa isoo wacday wadamada yurub ku degan. waxay tiri waxaan ahaa gabar runtii fisqiga iyo xumaanta caan ku ah, anigoo 16 jir ah ayaa waxay tiri yaa ma aragtay shaydaan idubsaday tiri, muddaan ku dhex jiray bay tiri. waxay tiri maalmaha kamid ayaa waxaan daawaday tiri ducaada meelaha maqtacyada ay soo geliyaan kilib yaro, waxaan daawaday towbada iyo ilaahay looga shaqeynay subxaanahu wa tacaala. gabadhaas waxay tiri oromaarig nolosheedii waan bedelay. gabadhaas waxay tiri min yoomi aan maqaaticda iyo khayrka aan maqlay wallahi xataa qiyaamu leyl igama tegin bay tiri, qiyaamu leyl igama tegin bay tiri. qur-aankii baa dib u muraajaceeyey, noloshaydii baan dib boor oga jafay. allahu akbar. waxay tiri waxaan dareemay noloshatan ugu macaan baan galay. waxaan u malayn jiray fisqiga iyo xumaanta, fujuurka iyo qaawanaanta iyo mataqaanaaye caariyaadnimadu inay tahay model, in ay tahay ma aragtay style, inay tahay ilbaxnimo. laakiin waxaan ogaaday ilbaxnimada iyo quruxda iyo inuu yahay markaad ilahay u dhaato subxaana wa tacaala. walaashayda qiimaha badan, walaalkayga sharafta badan, miyaadan doonaynin mansilooyinka qiimaha badan inaad gaadho? anas ibnu malik radia allahu tacala canhu ardaah, maalin nin baa u yimi sida uu warinayo yani alimaam alxaafid alxajar alcasqalaani ou ku leeyahy kitaabkiisa alisaaba. waxa uu leeyahay nin baa u yimid kaasu ku yiri ya anasow, beerihii baa qallay, beerihii baa naga qallay, biyo la-aan baa nahaysa. markaasaa wuxuu yihi biyo yar ii keena. markaasuu weysaystay, markaasuu 2 ragcadood tukaday. waa anas ibnu malik alansari radi allahu tacala canhu ardaah, waxa weeyaan khaadimu rasuulillahi sal lla alay slam. 2 ragcadood buu tukaday buu yihi. markaasaa markiiba roob iyo gogac iyo waxaa isqabsaday hanqadh, waxaa isqabsaday buu yihi markiiba inay dhibicda nagu bilaabata buu yihi. mansilada maanta lagaa rabo waxa weeyaan tarbiyadii uu tarbiyey nebigu asxaabta ridwaanullahi calayhim ajmaciin inaad qaadato oo aad 2 ragcadood iyo ducooyin aad wax ku hesho. ma waxaa lagugu talagalay, ma waxaad u malaysaa in macnaha ay qiimo leedahay inaad hoos u dhacdo? walaalkii kor u soo kac oo nin salaadaha wax ku qaadan karaya noqo, oo qof ducooyinka wax ku qaadan karaya noqo, oo qof ilaahay u dhow noqo. anas binu malik markuu gacanta kor u qaaday uu yiri ya allah, uu tukaday, markiiba roob baa isqabsaday. maanta adigu cudur kugu dhacay, maanta adiga sharci aad weyday, maanta adiga amni aad weyday, maanta adiga shaqo aad weyday, waxaad ku keensan leedahay calaaqada aad ilaahay subxaanahu wa tacaala. war hadduu ilaahay wax kuu xallin waayo, ma bini aadan ba wax kuu xalinaya? ma islaantaada wax kuu xalinaysa? ma dowladba wax kuu xalinaysa? ma maalba wax kuu xalinayaan? ma fiisika wax kuu xalinayaan? no wallahi kuma xalinayaan. waxa wax xaliya waa allah subxaanahu wa tacaala. alqaadi alxaajaat huwa allah subxaanahu wa tacaala. cidda xawaaijtaada iyo danahada kuu fulin karta waa allah subxaanahu wa tacaala. cidda ku caawin karta waa allah subxaanahu wa tacaala. cidda ku garab istaagi karta waa allah subxaanahu wa tacaala. cidda markaad cuskato aan kaa hoosbixin waa allah subxaanahu wa tacaala. cidda mansilada sarraysinaysa waa allah subxaanahu wa tacaala. ilaahay isaga yaa iskala aakhiriya adduunba. waina lana lalaakhirata waluulaa. adduunkan arkayso gaala ma lahan, adduunkan chinese ma laha, americana ma laha, adduunkan africana ma laha, european unionna ma laha. adduunkan allah baa iskale subxaanahu wa tacaala. adduunkan allah baa iskale subxaanahu wa tacaala. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. إلهي أذوك وقتلك سبحانه وتعالى أذوك وسخري وددي أتكغى فإذا الله الراع وعلم نافع برو وعلم شرع برو وإلهي سبحانه وتعالى قفك وحا واجب كؤا معرفة العبد ربه، معرفة العبد دينه. قفك إنه ربك سبرته، قفك إنه دينتي سبرته، قفك إنه نبيك سبرته. والإلهي برو سبحانه وتعالى والوقت جلسات إلهي كبر الله أسماء سي صفات كيسة
war waqti geli saad ku baran lahayd sunnada saxiixa ah war waqti geli saad ku baran lahayd diintaada si aad ugu guulaysato adduunka iyo aakhira baaraka allah fiikum halkay حياك الله وبياك إله سبحانه وتعالى هنقدقوا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم فافي مقطعا قف والبقارة أو توبت كان أو خير كاقادة أذغنا الصفحة هذا يكون جرتها السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته